waxgaradka gobolka Hiiraan ayaa ka hadlay abaare ka jira gobolkaasi. Faahfaahinta warkaasi waxa inoo haya Cabdishakuur Maxamed Xasan. qaar ka mid ah waxgaradka ka soo jeeda magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ee bartamaha dalkeena Soomaaliya ayaa waxay qeylaan ka muujiyeen abaar ku dhufatay qaybo ka tirsan gobolkan Hiiraan taas oo saameyn ku reebtay dadkii dunyada ku dhaqan gobolka Hiiraan. waxgaradkan ayaa waxa ay sheegeen inay jirto abaar lixaad oo saameyn ku reebtay dadkii dunyada ku dhaqan gobolka isla markaana loo baahan yahay gargaar degdeg ah lala soo gaaro dadka ay saameynta ku raabtay abaarta. waxgaradka ayaa sidoo kale waxay baaq u direen dawladda dhexe ee Soomaaliya maamulka Hirshabeelle iyo waliba sidoo kale hay'adaha samafalka bixiya ayagoona sheegay ahaanba in hay'adaha samafalka bixiya iyo waliba sidoo kale dawladda dhexe ee Soomaaliya ay iska ilmaameen shacabka ku dhaqan magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. maanta ka dhaxlay gobolada dhan Soomaaliya inta degantood furqade abaaran noqoto colaadaha noqoto wax kasto dhan ka dhacay waxaan leeyahay marka ummadda islaamka hadda xooluhu waa dhacdo bilaabeen oo abaar ahaydo waxay beer laga tabcalay oo jiin gubi iyo wax biyo laga guliyay wixii shimbira carabka saaratay marka waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed haas aymido dadkii walaalahooda xoolihii lagu haleynaa Soomaaliya xoolo ku nooleeyeen xoolihina maanta wadarkaydan bari waa laga qaylina baayo bakool waa laga qaylaha Hiiraan wax yar oo roob oo dhan la galay roobkii galay waa la isku yimid hargeyso meel kasta waa laga yimid baayo bakool marka wixii oo dhan waxa la yiraahdo cid guurto oo lagu guuro iyo cid soo guurto cid lagu soo guuraba daran marka waxaan leeyahay maanta Soomaaliya ilaahay macbuud ahaan u bariyayna dadkana waxa la rabaa inuu isku gargaaro loo gargaaro ummadda islaamka oo ama dibadda jirta ama dalka joogta ummadooda u gargaaraano wax biyadaan islaam loo dhaaniyo wixii raashin u hergaray raashin la siiyo walaalayaal sida aad ula socotaanba sanadkan Soomaaliya waxa ka jiro abaaro ba'an oo gobol kasta saameeyay gobolkeena wuxuu ka mid yahay goboladaas inkastoo xoogaanaha laga helo meelaha kore inta badan abaartaasi waa haysataa dad iyo dunyaba leh sida aawadeed waxaan u sheegayaa caalamka islaami ummadda islaamka ah meel kastoo ay dunida guudkeeda ka joogto cid alla cidii suurtagal ay u tahay inay caawiso dadka tabaalaysan in la caawiyo sidoo kale dhammaan dadka reer Hiiraan inay ka qayb qaataan cidii wax haysato in la caawiyo dadka macaluusha xoolihii ay dhaafisay iyo dadka jiran oo caruurtoodii shuban ku laayay sidoo kale waxaan si naxariis looga codsanaynaa dhammaan shanta qaaradood ee caalamka ummadaha ku nool daafaha dunida ee islaamka in ay saacideeyaan oo ay kaalmeeyaan dadka tabaalaysan oo qaarkood xoolihii ay dhaafeen qaarkoodna daacuun uu ku habsaday abaar baan oo eber ah oo wax la daaqa xoolaha ay lahayn ay ku habsaday inta islaamka waxaan u sheegaynaa waan ka codsanaynaa dadkan tabaalaysan abaaraha ay halakayeen xoolihii mataqaanaa ay dhaafeen oo hadda shuruudkii uu mataqaanaa iyo daacuun mataqaanaa waxyaabo badan u geysteen walaalaha islaamka waxaan ka codsanaynaa in mataqaanaa dadkan dhibaataysan cidii wax awoodo inay u qabtaan haddii ay yihiin jaaliyadda dibadda ku nool ee reer Hiiraan haddii ay yihiin dadka mataqaanaa ganacsatada ee wax haysto oo Ilaahay wax u dhiibay waxaan codsanaynaa dadkan in wax lala soo gaaro waad arkaysaan abaaraha maanta ka jiro waxaad arkaysaa geel aad moodaysa qolof arigi dadku waa dhaafeen loodii waa dhaaftay dameerihii waa eber maanta kaliya waxaa nool oo kaliya geelina wuxuu daaqayaa geed qodxoodkaas haddii la waayana waxaa ka imaan kara inuu taqa meeshaas baaba ay tahay. Cabdishakuur Maxamed Xasan TV-ga caalamiga ah waa Bari TV Beledweyne.